kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkan. Waxa aan 2 iyo 3 daqiiqo soo aadan haddii eebba caafimaad inagu gaarsiiyo idiin soo gudbin doonaa waxyaaba ninka ragga ahi gabadha uu jecel yahay uuna weydiisan doonin marnaba. Haddaba haddii aad ka heshay muuqaaladan aan sida maalinlaha halkaan ugu soo gudbiyo, subscribe saaro channelka, calaamada gabaleelkana furo si waxyaabaha aan soo geliyo ay isla daqiiqadaasi kuu soo gaaraan. Jacaylku ma ahan wax sahlan, waana mid bedela dareenka qof waliba oo galo. Haddaba ninka ragga ahi marka uu wax jeclaado waxa isbedelaa waxyaabo badan oo uu hore u samayn jiray, isaga oo iska dhaafa wax uu jeclaa in uu sameeyo si uu jacaylkaasi u hantiyo. Haddaba marka uu gabadha jecel yahay ninka ragga ahi, qodobadani marnaba macquul ma ahan, mana weydiisan doono. Gabadha uu jecel yahay ma weydiisan doono in ay iska dhaafto hamigeeda. Ninka marka uu jecel yahay gabadha marnaba macquul ma ahan in uu ka dalbado in ay hamigeeda joojiso si ay keli ugu noqoto oo isaga oo keliya waxyaabaha uu samaynayo ay ugu hoggaansanto. Qodobka kale waxa uu yahay in ay ka fogaato cidda ay jeceshahay. Marka uu ninku sida dhabta ah u jecel yahay gabadha, marnaba ma awoodo in uu ka fogeeyo dadka ay iyadu jeceshahay sida qoyskeeda, aabbo iyo hooyo, walaalo iyo cid walba oo ay dunidan mar uun kula kulantay oo ay wax xiiso ah u qabto. Haddaba marnaba macquul ma ahan in ninku uu ka dalbado gabadha in ay ka fogaato cidda gabadhu ay jeceshahay si ay isaga oon keliya ay dhankiisa u marto. Sababtoo ah haddii ay keli ku noqoto taa ma ahan wax farcad ah. Qodobka kale waxa uu yahay inay nafteeda u hurto. Ma jiro nin jecel in gacalisadiisu ay ka dalbanayaba in naftiisa ay u hurto. Gabadha uu jecel yahay waaba uu jecel yahay. Tusaale haddaan u soo qaato, haddii aad aragto ninku leh si aad jacaylka ii qabta u muujiso debkan lugaha gasho, taa lama dhihi karo waa jacayl. Taa waa ciqaab adduun, sababtoo ah haddii ay wax ku gaaraan isaga wax dan oo kaga jira male. Laakiin ninka gabadha uu sida dhabta u jecel yahay marnaba kama dalbanayo in naftiisa ay u hurto oo wax yar xitaa ay soo gaaraan, sababtoo ah si dhab ah ayuu kuu jecel yahay. Oohintaada iyo dhaawacaaguna way dhibayaan, marka macquul maahan inuu ka dalbado. Qodobka kale waxa uu yahay in uu ogolaado in waxa dhaawacaya sharafteeda. Macquul ma ahan in uu u ogolaado waxa dhaawacaya sharafteeda. Marka uu ninku jecel yahay gabadha, sharafteeda waxa ay noqonaysaa sharaftiisa. Sidaas darteed marnaba macquul ma ahan inuu u ogolaado wax dhaawacaya sharafteeda. Wax walba oo dhaca waxa uu mar walba ilaalinayaa sharafteeda, wax walba oo dhaca. Marka daah ayuu u noqonayaa, iyaduna gadaal ayay ka maraysaa. Marka macquul ma ahan. Haddii aan muuqaalkeedu ku dheeray saaxiibayaal, aan soo gabagabeeyo, qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay in ay bedesho muuqaalkeeda. Kan ugu muhiimsan, kan Soomaalidu maalmahan ay sida aadka ah u isticmaasho. Ma jirto nin jecel gabadha uu xiriir wadaagga la yahay in uu ka dalbado in muuqaalkeeda ay bedesho. Ninka jecel gabadha marnaba iskuma dayayo in ay bedesho muuqaalkeeda, sababtoo ah waxa uu doonayaa inay noqoto qof ayna ahayn inay noqoto. Ma jiro qof doonaya. Ninku marka uu gabadha jecel yahay waxa uu ku jecel yahay sida ay tahay, waxaana rajaynayaa in ay ahaato sida ay tahay, sababtoo ah waxa uu jecel yahay in ay sida ay tahay ay ahaato, oo waa sidii uu markii hore ku jeclaaday. Tusaale ahaan, waad madowdahay iscaday oo kale waa tusaalaha ugu macquulsan ee la soo qaadan karo ee nolosheena caadiga ah ku jirta. Marka waa qodobada ah ninka ragga ahi gabadha uu jecel yahay uuna weligiis ka dalban doonin. Haddaba daawade, haddii aad ila soo gaartay gabagabada, eebba ha kuu naxariistee, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si lamida aad ila midowdo. Waxaan rajaynayaa in aad wax uun ka faa'iidi doonto channelkan
oo aanad ku khasaarin doonin. Waad ku mahadsan tahay ka tegis